السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا qaaliga soo dhawaado waa channelkiina maam sharaf oo idin leh soo dhawaado meel kasta dunida daafiyada ka joogtiin walaalahayga qaaliga maanta madluucina waxa waaye walaalahayga oo ka sheekeynayna dhibaatada oo ku haayo jaadka maandooriyaha dhibaatada oo ku haayo rageena Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan ka hadlo walaalahayga qaaliga waxa waaye waxaan ku bedelanaa caleen ayaan dollar ku bedelanaa walaalahayga ilaahay waxaan ka baryaynaa in wadankeena nooga qabto jaadkaas oosan nooga soo galin sababtoo reer familiyaal badan ayaa dartiis ku kala tagay qoysas badan ayaa dartiis ku kala tagay dhibaateeye aad iyo aad u dhibaato badan waayo oo yacni labada qof oo bilaadanka xaaska oo isqabo isku diro ku kala tagaan madaxiisa waaye walaalahayga qaaliga ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay naga joojiyo oo ilaahay aan ka baryaynaa kun iyo jeer ilaahay insha Allah ilaahay mar uu noo aqbal doono ducadeena sababtoo hooyooyin badan ayaa dhibaateysan oo ku dhibaateysan odagii yacni maanta waxaan ku leeyahay jaado cunaaya meelo fadhiya ruuxiisa iska qaadanaya hooyadu waa kurbeysan tahay kaligeedu waaye ilmihii ayadii ordaysa boobeysa inta dukaanka aadaysa ayadaa wax walba raadinaysa isaga ruuxiisa inta qaato meel iska fadhiistay ayuu iska mirqaamaya wax ka maqanba ma lahan dhibaateeyo weyn waa jaadka ilaahay waxaan ka baryayaa jaadka inuu naga qabto oo ilaahay waxaan ka baryaa wadankeena uusan naga soo galin jaad caleen ayaan ku bedelanaa dollar aan caleen ku bedelanaa diyaarado jaad inta noo laga keenaa diyaarado dollarna laga qaadaa marka walaalahayga qaaliga waa inaan taasna ka hadalnaa oo aan sidii aan yacni uga hortagi lahayn aan isku daynaa marka dad badan dartiis u kala tagay ilmo badan ayaa dartiis u rafaadsan darbi jiif u noqdeen meelaha koolo ku dhuuqayaan ciyaalkii hooyadii aabihii jaad dartiis ku kala tageen jaadku marka saasoo qoyska u burburiyay ninka qayilayo waxaa fiican inuu reerkiisa ogaado iska dhaafo jaadkaas oo cunayo jaadka wax faa'iido oo leeyahay ma lahan waa maandooriye maskaxda dooriyo ilowsiinayo hooyadii ilmihiisii maantii waxa laga yaabaa magaalada intuu aad ruuxiisa qaato iska fadhiisto iska cunaya markaas uu war ka hayn ciyaalkiisii ma dharagsan yihiin ma baahan yihiin hooyada ayaa dhibaateysan ilaahay waxaan ka baryaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatada oo ku haayo geedkaas in ilaahay ka bixiyo hooyo walbana waxaan ka rajaynayaa inay u dhabar adeegto sidii yacni odageeda uga reebi lahayd jaadka aan wada galnaa falkii aan nimankeena sida aan uga reebi lahayn jaadka waa inaan galnaa oo aan juhdi badan u bixinaa oo aan si doonto meel walba ka marnaa aan dhahno iska dhaaf qofka bilaadanka markasta markii wixii laga celsho yiraahdo walaalow saan waa wixii waxni iska dhaafta ay ku badato wuu iska dhaafayaa insha Allah dhiirigelinta iyo xaqiina ka daciifin walaalahayga qaaliga ah marka daawashada ay daawateen waa ku mahadsantahay subscribe isar share garay like isar barnaamijka comment ka bixiya walaalahayga qaaliga waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh